Ku soo dhawaada Maskaxdeen Healing. Maanta maxaan ka hadli doonaa envy. Maxay ahaydee maxay la jooga Dr. Ahmed and Xadiith. Xadiith wuu nagu cusub yahay, so inuu dadka isbaro wuu maxay ahaydee noo sheegi doonaa maxay ahaydee experiencekiisa iyo waxa kaluu rabo inuu nala wadaago. Maxay ahaydee waxaa ka hadli doonaa envy waxay tahay iyo say u kala baxaan. Maxay ahaydee experience-keenana or waxaan ka aragnay envyga dabeecadahan ka aragnay ayaan maxay ahaydee sheegi doonaa. aad waa mahadsantahay Nimco iyo Axmed barnaamijka ay ugu casuumteen. Magacaygu waa Xadiis Aadan. Waxaan la shaqayn jiray dadka dhimirka qaba. Hadda waxaan ka shaqeeyaa corrections facility in Maine. Nimco aad baad u mahadsantahay adiga iyo Xadiisba. Xadiis iyo anigu barnaamij baan isla daadihin jirnay, laakiin hadda aad baan ugu faraxsannahay inaan Nimcana ku soo biirnay. So hadda I'm sure saddexdayadu will contribution fiican baan ku samaynaynaa programka maadaama oo prospective kala duwan aan ka hadlayno. Marka I think maanta say Nimca sheegtay waxaan xooga saaraynaa envyga. Marka envyga waxyaabaha nagu dhaliyey aniga Xadiis baa in muddo ah ka hadlaynay baa waxay ahayd in uu yahay feeling ama dareen dad badan oo bini'aadankii ay dareemaan. Psychoanalysiskana aad loo darsay. Laakiin inta badan waxaa ku yara jira confusion, dadku way ku wareersan yihiin. Marka sababtaa daraaddeed baan rabnay inaan uga hadallo si ay dadku u fahmaan isaga iyo xaasidnimada, because dad badan baa xaasidnimada ku khalda envyga. Envyga laftigiisa af Soomaali maxaa lagu dhahataa laftigeeda waan eegi doonaa hadduu la yidhaahdo. Waxa kale oon rabnaa inaan xoogga saarno in envygu uu ka mid yahay calaamadaha personality disorderska, ama ha noqoto narcissismka, ama ha noqoto histrioniga, ama ha noqoto borderlineka. Marka waa muhiim marka inaan envyga fahanno si aan disorderada kalena aan u fahanno. Marka insha allah waan iska bilaabanaynaa hadduu la yidhaahdo. Xadiisow, kelmadda envy maxaa lagu yidhaha waad u malayn af Soomaali haddaan adiga kugu bilaabo? Waa mahadsantahay Axmedow. Kelmadda envy waxa ugu soo dhow waxaan u malaynayaa inay noqonayso af Soomaaligii weynaa u qooriwaa. Qofkaadan waxan uu haysto aadan u qoorin. Laakiin si guud ahaan waxaan dhahnaa xasad baan dhahnaa, maadaama dee af Soomaaligan af Carabiga uu aad loo isticmaalo ereyadiisa qaarkood. Marka Soomaalida waxay ku leeyihiin waa xasad, laakiin u qooriwaa baan isleeyahay waa kelmadda saxda ah ee ku habboon. Xadiiso aad baad u mahadsantahay. Marka xasadka iyo envyga waxa u dhexeeya waan sharaxi doonaa si ay dadku markaa u fahmaan. Laakiin kelmadda aad leedahay u qooriwaadaba ayaan isleeyahay way ugu dhowdahay. Nimca, adigu waxaan u malaynayaa say wallahi baa tahoo vocabulary af Soomaaliga saabkuguma dheeraysid. Maya xasadka Xadiitha raacsan yahay xasadka iyo nacayb inay tahay. Sax. So marka envyga haddii aan macnayno sida psychologygu uu leeyahay, waxa weeyaan waa qofku inuu jecel yahay ama uu rabo wax qof kala haysto. Qofkaasoo marmarka qaarkoodna uu rabi lahaa qofkan inuu wixii helin. So wixii anigu aan rabay ayaad adigu haysataa. So markaa niyadda ayaa waxaan ka rabaa in waxaan adan helin. Marka waa saas bay ku macneeyeen. Marka dadka haddaba envyga qaba core emotionskoodu waxa weeyaan qofka naftiisu the self haddii la dhaho waxay dareemaysaa emotional pain marka ay ku arkaan qofkan kale inuu haysto wixii isagu rabay. So iminka masalan qofkan hadduu qurux badan yahay oo qofkii isagu quruxdii lahayn, danuu ka xumaanaya xumaanta marka emotional pain buu dareemayaa. Also waxa kaluu dareemayaa sense of inferiority. Wuxuu leeyahay aniga ilaahay ima siinin qofkan wax kasta isagaa haysta. Maxaa la yidhahdaa aniga muxuu ilaahay ii siin waaye. Naftiisiina inayna qiimo badan lahayn buu dareemayaa. Wuxuu leeyahay ilaahay ama dadkaa kaloon baa wax kasta helaya, anigu waxbaba ma helo, oo marka naftiisiina hoos buu isku liidaya.
marka relationshipka envyga waxyaabaha uu xaasidka kaga duwan yahay baa waxay tahay envygu waa wax laba qof ka dhexeeya, jealousiguna waa wax saddex qof ka dhexeeya. So iminka jealousiga waxa weeyaan laba qof baa relationship fiican leh, qof saddexaad baa ka xun relationshipka labada ay leeyihiin. Laakiin envyga waxa weeyaan anigiiba waxaan ka xumahay qofkan kale wuxuu haysto. So marka waa saas. So marka qofkani waxaanu haystaa ama qurux ha noqoto ama lacag ha noqoto ama farxad uu haysto ayaan ka xumahay. Markaa nimcihii xadiis waan idin weydiiyey exaambalo maad aragteen dad saasoo kale envious u ah? Ha, ani waxaan dhihi lahaa dad badan oo like saaxiibahoodii iyo dadkay la dhasheen walaalahood aad arkaysa waxyaalahay ku suubiyeen inay ay tusayso envigaas, naceybkaas iyo inay waxaas ay nolol fiican u quurin. Sax. yaa runtii say nooca sheegtay waaye dee waxaan anu waxaas dhahaa envyga qofka leh dee oo heerkan dhibka badan leh waa qof dee aan sidiisa kaleba sii deganayn markii horeba uu ahayn qof aad u degan markina way jirtaa qofka markaad oo raban dee inaad dee shaqo fiican heshid maraykan markaan imaaday baa shaqooyin roon baan helay oo fiican qof walba waxaad moodaa dadka qaarkood runtii qof walba ahayn dhowr qof waxaad moodaa dee inay jeclaan lahaayeen inaan ka bilaabo meeshii adiga ka bilaabeen mugta dee qof walbana markuu waddankan imaanayo meelo kala dee waddanka afriku waxaa laga yaaba in wax kusoo barto halkan markuu imaaday uu wixiisa soo hormariyey marka dadkuna dee kama ahanba xumaan moogtahay wixii waxay ka dhigayaan wax iska caadi ah marka envyga runtii dadka sameeya waxaan is dhahaa qaarkood ma lahanbo self awareness oo waxay u malaynayaan wax iska caadi ah Sax xadiis waa runtaa weyn. Infact pointigaaga waxaan kusii dari lahaa envygu waa wax innaka dhan aan leenahay. So marka ilmuhu uu yar yahay ilmo kale markuu soo dhasho ilmaha kale maadaamuu ilmo yar yahay oo hooyadu ay attention badan siinayso oo ilmihii maanta dhandhabta lagu hayo naas la siinayo oo ilmihii markaa envious buu noqdaayoo ilmaha yaree baybiga iyo hooyadii siday iskugu dhow yihiin ayuu ka xumaadaayo so markaa waan leenahay dabeecaddaasoo bilaaadankao dhan baa saas soo marta laakiin waxa weyan dee dadku intooda badan way ka koraan oo way ka weynaadaan laakiin dad baa stok ku noqda marka dadkaasi waa dadka hadda aan ka sheekaynayne enviouska noqda marka laakiin enviga laftigiisu laba nooc buu u kala qaybsamaayo mid wanaagsan oo banayn inaan wanaagsan odhan laakiin mid banayna oo qofku markuu arko qofkani inuu ka horomaray yees ha ka xumaado laakiin isku daya isaguna inuu dadaalo oo maxaa la idhahdaa uu aad u gaadho qofkani meeshuu joogay so kaasoo kale markaa wuxuu ku motivate garanaya qofkii inuu ku daydo qofkan oo meeshiisii uu gaadho iyo mid malicious ah marka kan maliciouskii waxa weyan wuxuu isku dayayaa xaguu ka dadaali lahaa inuu qofkan lugta soo qabto hoos soo jiido dhulka keeno mugta so marka kuwaas waa kuwa markaa sabotaajka iyo waxyaabaha samaynaya marka I wonder laakiin ragga iyo dumarku in the way ay u express gareeyaan enviga inuu kala duwan yahay iyo in kale xadiis iyo nimca bal taa maxaad ka leedihin No, aniga waa aaminsan yahay inay kala duwan yihiin because even enviga waxaa kala jiro dad oo remorse lahayn oo like waxay qofkaas ku suubinayaan waxaan ka hadlayaa like current times you know dadka waxay dadka kale ku suubiyaan naceebkooda iyo dhibaatada u geystaan naxariis ma lahan aad iyo aad yaa waa runtii way jirtaa naxariis darradaas gaar ahaan marka dee la joogo gaar ahaan waddamaha qurbaha anugu waxaan arkay dee waxyaabo badan oo anigu si caadi ah aan ugu qaadan lahaa laakiin aan ku baraarugo mar dambe taasoo ah markaan ka qalin jabinayey main criminal justice academy ba waxaan arkay dee dad badan oo isdhehaynin dee ninkaa meeshaan ka qalin jabin doonaa ama shaqadan u heli doonaa marka waxaa iga qoslisiiyey markii aan
imtixaamada iyo waxaas iyo PT maxaa la dhahaa PT fitnesska la marayay marka dad qofna ma isdhehaynin dee ninkan madow baa waxaanoo dhan mari doona marka waa lagu imaan waxaa lagu leeyahay oh afrikaan haddaad tihiin intaan yartaad ku fiican tihiin iyo orodkan iyo waxaan marka haddana waxaad arkaysaa in lagu imaado lagu leeyahay imtixaankan seed ugu baasto kale mar qofka markaad sii weydiiso dhahda dee isku wax un baa nala baraye maxaa ku jaban inaan ku baaso kuma sharxi karo marka marka yaa maalin dhawid dee axmed markaad infigan ii sheegtada intaan xoogaa research gareey waxaan xasuusta marka waa iska qoslaybo anigu uma maleyn waxaan inay infi tahay xadiiso aad baad u mahadsan tahay marka haddii aan raaco kommentiyadiina waa run oo anigu hadalka nimca sheegtay baan ka fikirayay oo ah dadka qaarkood especially kuwan malicious envyga leh in ay naxariis darre ka tahay oo isku dayayaan qofkan in ay dhulka keenaan oo waxoogaa qofkii ay ka qaadaan wixii uu helay ama wixii uu haystay ama ay destroy gareeyaanba marka taas waxay soo xasuusisaa masalan dadka narcissistic oo kale maaragta dadka narcissistica maadaama iyagu isla qabwan yihiin oo iyagu isku haystaan inay dadka ugu sarreeyaan haddii ay arkaan qof iyagii outshine garaynaya then markaasoo kale qofkaasi inay character assassination ku sameeyaan oo ay beenan jirin intay ka sameeyaan ay suuqa u geliyaan si qofkaasi magaciisa iyo sharaftiisu a u baaba'do maaragta to me dadkaasoo kale ayaad moodaa inay kuwa ugu daran envyga marka la yidhaahdo ay yihiin mugta marka taana waxaad moodaa inay nagu badan taho dad badanoo waxaa jira iyagu aanan karti lahayn ay meelo dhaadheer ku gaadhaan ama ay wax badan ku qabsadaan maadaamana iyagu karti lahayn oo self steamkooda uu low yahay aanan arki karayn qof kale inuu markaa uu meersala gaadho marka markii ay arkaanna ay maxaa la idhahdaa qofkii ay isku dayayaan inay destroy gareeyaan so marka dadkaasoo kale maxaad is leedihiin waa lagula dhaqmi karaa ama ma ku aragteen communityga yaa axmed haddaan kusoo boodo waa u badannahay runtii communityga waxaana isdhaha waaba dadka ugu horboodka badan ana intaan arkay character assassinationku horta waa hubka ugu weyn ee qofka envyga uu isticmaalo baan isleeyahay waxaan xasuustaa nin saaxiibkay oo filimkan la dhaho arbay sameeyey waan mar wada sheekaysano oo igu yiri aad baa la ii weeraray buu yiri waxaa lileeyahay yiri waxaani qowmaluudnimu ku faafinayaa waxaanuu ka samaynayaa soomaalidu mashruuc kusoo qaatay anigana dee waan aqaanaayo dee qarashka xataa qeybkiisuu ka galay markuu filimkaa samaynayay marka uquurwaaga dadkeennu waan yaabaa dee waa run bini'aadamka oo dhan waa leeyihiin laakiin anagu waxaan u malaynayaa inaan aad ugu fududnahay inaan yeelano marka nimca bal ka wan adu xagga dumarka marka la fiiriyo envyga noocaas oo kale ah ama qofka dabeecaddiisa la weerarayo ma aragtaa marmar Haa, like dad badan oo inay like you said cancel culture baa la dhahaa hadda meel kasta inay qof kasta lagu boodo aad maxayada ka yaabaysid so way jirtaa marka waxaan galaynaa envyga marka maxaa u keena dadka why dadku they become envious marka I think dhowr qaybood baa jira marka kuwa ugu muhiimsani waxa weeyaan masalan resource is one of them so anu waxaan arkay hadda iminka dadkeennoo kale masiiba africa marka la joogo dadku maadaama ay iska dhibaataysan yihiin oo iska rafaadsan yihiin waxaad arkaysaa hadduu qofi uu helo ama qofi uu lacag yeesho dan waxaad arkaysaa dad badan oo ka xumaanayo ama cay suuqa u gelinaya ama haddii ay wax ka waayaan qofkaas